بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله haddii ay baqadaro waxaynu wadaagi doonaa muuqaal kooban oo aynu kaga sheekaynayno astaamaha iyo tilmaamaha ay leeyihiin dadka garaadka badan leh garaad badnidu waa hibo alle ku galada adoomihiisa qaar waana carbin nafeed oo qofku hadduu maankiisa layliyo waxa suura waa inay kor u kacdo garaadkiisa iyo garashadiisu labadaba garaad badnida waa cilmi aad looga sheekeeyo laakiin waxaanu eegi doonaa maanta haddii rabbi qadaro bal dadka garaadka badan leh iyo astaamaha ay gaarka u leeyihiin kow dadka caqliga badan leh ama garaadkoodu sareeya waa dad aan lahayn golka fuul iyo ku kadintoona nolosha waxay ka leeyihiin qorshe cad oo muuqda haddii ay noqoto maaliyad haddii ay noqoto waxyaabaha ku soo fool leh nolosha waa dad mar walba heegan u ah oo diyaar garow ugu jira qodobka labaad ee ay leeyihiin dadka garaadka badan leh waa dad qaladka ku dhaca amba ay galaan wax ka barta Soomaalidu waxay tiraahdaa ama ku mahmaahdaa maridaga Allah dago laba jeer dagana aniga istagay qofku mar uu qaldami karaa uu ilduufi karaa laakiin sidii aad shalay u ildooftay inaad maantana aad u ilduufto waa go'aan qofeed waxaanay muujinaysaa nacasnimo marka qaladkaagii hore ee kugu dhacay wax ka baro wixii shalay ku soo maray ku taamila qaado ka feejignow halkii shalayto qodaxda kugu muday halkii qorigu kugu muday mar labaad cagtaadiyo lugtu yaanay kula marin ayuu lahaa Ibraahim Galle qodobka ku sii xigay ay leeyihiin dadka garaadka badan leh waa dad u fakira sida si ka duwan saayidku u fakira waxay aaminsan yihiin ibn aadamka waxa saameeyo oo raad ku leh bi'ada iyo deegaanta uu ku dhasho sida awgeed mar walba waxay jecel yihiin mushkilad kasta iyo caqabad nololeed oo kasta oo la soo gudboonaata inay u helaan xal ka duwan kii ahaa abka soo gaarka ama budulka dadka garaadka badan leh waxay leeyihiin geesinimo iyo kordhac ah inuu qofku bedeli karo aragtidiisa shalay toole noloshu waa cajalad iyo graan wareegaysa mar kastaba wixii aad shalay aaminsanayd wax ka fudud ama ka duwan ama waaqicaaga la jaan qaadic kala korkaad aragto waxaad ka tanaasulaysaa aragtidaadii shalay waxaanad qaadanaysaa ta cusub ee maanta tusaale ahaan imaam Shaafici rahimahullahu ta'ala waxa uu caalim ka mid ah culimada waaweyn islaamka garahan مبدأ الشافعي أما مذهب الشافعي وأنك قروديك كأ وحليه لما مذهب كيسي هريه كذنبه مسائل بدهم بوحوجة تناسلي إن أنا هين قار واقع على شان قاضي أما أدلة كل سنة إنك تهي ضعيف أما كون ضميني كيف تديه dadka garaadka badan leh ma aaminsana waxa la yiraahdo nasiibka iyo nuxuusta aan nolosha ma aaminsana waxba nasiib ku yimaado wax kasto ay qabanayaan oo waxay u diyaar garoobeen oo ay kula soo baxeen maskax iyo garaad iyo muruq wada socda dadka garaadka badan leh waxay ka faa'iideystaan fursadaha waa sida ibn aadamka oo kale fursadu marbay qofka soo martaa waa qof u dhagtaaga fursadaha nolosha markastoo fursadu soo hormartana wuxuu uga faa'iideystaa si wacan oo kama qoomamoodaan fursad soo martay oo ay dayaceen dadka garaadka badan leh ma qaataan go'aamo ku dhisan laablakac iyo salfudeed go'aanka marka ay qaadanayaan way rogrogaan way shiilaan Soomaaliduna heesa badan iyo suugaan badan bay ku leedahay oo ka waramaysa in xaajada loo bariyo oo lagu degdegin maxaa kamid ah heesaha taladan la ruugan waa lagu rafaadaa maxaa kale oo kamid ah arrinkii la raajiyay la rogrogaa wanaagsan maxaa kale oo kamid ah ma ogtahay la shalay anigu shan goor baan sii shiilay talada markastoo xaajada la ruugo la faguro hoos loogu dhaadhaco waxa laga keenayaa xal waara oo faa'iido leh dadka garaadka badan leh waa dad aaminsan inay noloshu ku dhisan tahay aqoon si joogto ah ay cilmiga u bartaan kuma hakadaan darajo kasto iyo aqoonta martabad kastaba ha ka gaaraan waa dad jecel inay ka sii kordhiyaan halkay maanta joogaan si ay u gaaraan meel ka sareysa halka ay joogaan garaad ahaan aqoon ahaan maaliyad ahaan iyo qof ahaan iyo fikir ahaanba qodobkeena ugu dambeeya inuu soo qaadayno dadka garaadka badan leh waa dad raaxo jecel oo inay hawl qabtaan nacab haddana waxay og yihiin goorta ay raaxaysanayaan iyo sida ay u raaxaysanayaan markastoo ay hawli u taalo waa dad hawsha ku foogan markay hawsha dhameeyaanna waxay u helaan raaxadooda iyo danahooda gaarka waqti badan intaasina ku koobaynaa tilmaamaha ay leeyihiin dadka garaadka badan leh intana muuqaalkan oo kala ku kulmayno waxaan iskaga tageynaa nooli kulantay